السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مروين iyo mudanayaal kusoo dhawaada warka telefishinka qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliyeed oo idinkaga imaanaya stuudiyaha Nairobi. Aniguna waa Maxamed Axmed Ilkaase. Qodobada ugu waaweyn ee warka telefishinka qarankana waxaa kamid ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu qasriga madaxtooyada ku qaabilay wafdi ka socda dalka Ingiriiska waxaana wafdigaas isla maanta lagu wareejiyay dhulka laga dhisayo safaaradda Ingiriisku uu ku yeelan doono wadankeena. wasiirka gaashaandhigga ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta la kulmay guddiga farsamo ee ciidamada Soomaaliya waxaana kulankaasi looga hadlayay arrimo badan oo ku saabsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Belgium ayaa waxa ay ballan qaadeen inay ka qayb gali doonaan dib u dhiska lagu sameynayo safaaradda Soomaaliyeed ee dalkaasi oo shalay lagu guuleystay in dib loo soo celiyo lagana raro qoysas sharci darro ku deganaa oo ajaanib ah. baarlamaanka dalka Kenya ayaa waxa uu kulan maanta ku yeeshay magaalada Nairobi oo u saaray laba guddi oo muddo toddobaad kaga soo warbixiya mashaqooyinkii ka dhacay magaalada Garissa iyo xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. waxaa sidoo kale degan magaalada Garissa ee xarunta gobolka waqooyi bari dalka Kenya halkaas oo maalmihii la soo dhaafay ay mashaqo ka jirtay. 200 oo qoys oo ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa maanta loo qaybiyay raashin iyo maacuunta guryaha. magaalooyin badan oo kamid ah dalkeena oo ay kamid tahay caasimadda Muqdisho waxaa maanta laga xusay maalinta macalinka Soomaaliyeed oo loo asteeyay 21 bisha November ee sanad walba. jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Kenya waxa ay si weyn ugu mahadceliyeen doorkii geesinimada lahaa ee uu ciyaaray Mudane Yuusuf Xasan Cabdi oo ka tirsan baarlamaanka dalka Kenya lagana soo doorto degmada Kamakunji ay xaafadda Islii ka tirsan tahay. doorkaas oo ku saabsan qaabkii loo badbaadiyay hantida Soomaaliyeed ee xaafadda Islii taala markii ay kooxo qowleysata ay isku dayeen in ay boob u geystaan. qodobada dhanka caalamkana waxaa ugu waaweyn magaalada Tel Aviv ee caasimadda Israa'iil bas ayaa la qarxiyay 12 qof ayaana ku dhaawacmay waxaana Israa'iil weli sii wadaa duqeymaha ay ku hayso Suuriyada Gaza. dad Falastiiniyiin ah oo 100 kor u dhaafaya ayaana duqeymaha ku dhintay tan iyo markii ay bilowdeen. intaasi marooyin iyo mudanayaal waa qodobada ugu waaweyn wararka telefishinka qaranka. iminkana idinkoo mahadsan waxa idinku soo dhawaataan warkii oo dhameystiran.